taariikh lahayo aan la halmaamin naga hooya murti ufan ikaad qoran naga hooya murti ufan ikaad qoran naga hooya. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. dhammaan ummadda soomaaliyeed guud ahaan meel kastoo aada joogtaan waqti kastoo idiin tahay waxaan idin leeyahay maalin wanaagsan. kusoo dhawaada barnaamij yar oo kooban oo ku saabsan saxaafadda soomaaliya oo ay maanta ku beegan tahay maalintii u horreysay ee loo aqoonsaday ama loo astayay inay noqoto maalinta saxaafadda soomaaliya. waana maalin xusuus badan oo taariikho kala duwan iyo arrimo kala duwan aan rabno inaan uga hadalno oo kooban oo nagoon badinaynin. marka meel kastoo aada joogtaan kusoo dhawaada. ilaah ayaa mahad leh. maanta waxay ku beegan tahay maalintii saxaafadda soomaaliyeed. waxaan marka guud ahaan hambalyo u dirayaa dhammaan warfidiyeenka soomaaliyeed ee nool meel kastay joogaan, kuwa dalka ku nool, kuwa dibadaha ku nool, kuwa meel kastoo adduunyada kamid a qaarad kastoo ay tahay shanta qaaradood saxafiyiinta ku nool da kastoo ay jiraan waxaan leeyahay hambalyo. waa sanad guuradii. maanta waa maalin u gaar ah warfidiyeenka soomaaliyeed, hadday yihiin kuwa fanka, kuwa qoraalka, kuwa sawirada, kuwa ruwaayadaha jila, kuwa ciyaaraha ku ciyaara, wax alaal wixii artist ku saabsan waa maalinta loogu talagalay. waana 21 January. waana maalmaha aadka ay dalka soomaaliya loogu xusi jiray, qaashatan bahweynta warfaafinta oo hadday madbacad leeyihiin iyo hadday meelo kale leeyihiin ilaa iyo nadiyadooda waxay ahaayeen iyo kooxooda waxay ahaayeen maantaas waxay lahayd maalmo oo khatar ah oo aada u wanaagsan oo xusuuso badan leh. marka meel kastoo aad joogtaan horta hambalyaan idin leeyahay. intaas kadib waxaan rabaa anoo ku hambalyeynaya in ilaahay uu sanadkan nooga dhigo sanad fiican oo warfaafinta soomaaliya isku duba dhacdo, oo hadda anagoo ka faaideysanana aaladaha kala duwan iyo fursadaha jiro oo saxaafaddu haysato. annagoo ka faaideysanana waxaan isku dayeynaa inaan qaybo usoo kala qaadno. marka intaas aan ka dhigo furitaankeena hore, bal qodobka koowaad aan u gudubno. sidaad wada ogtihiinba warfaafinta waxay la saan qaadaysay mar kasta horumarka adduunyada ka jira. warfaafinta soomaaliduna waxay soo martay xilli lug, faras iyo dhawaaq iyo laysku gaarsiiyo oo fariimaha la isugu diro siyaabo kala duwan. waxay soo martay xilligii boostada, waxay soo martay xilligii oo lagu xirnaa oo intaan raadiyo soomaaliya yeelan ay idaacadaha dibadda furmeen, oo sida idaacadda raadiyo qaahir oo kale iyo BBC iyo markay furmeen oo adduunyada kusoo kordhay raadiyahaas. markaa soomaaliya intii raadiya ka gaartaya waxay tahay ilaa iyo dhammaan africa iyo adduunka dhan laga dhegeysan jiray, oo mawjado dhexe, mawjado gaagaaban, ilaa markii dambena hirarka fmka lasoo gaaray. markii dambena waxaa la kusoo biiray aaladaha satellite-ka oo tvga qaranka ku shaqeyn jiray. marka farsamo ahaan iyo qalab ahaan markii u dambeysay allaha noo deystay, hadda qalabkiiba waa sii horumaray oo wax kasta waxay noqdeen wax oo wada digital ah, oo waxaabay qarashka badan iyo hantida badan ay geli jirto waxay maleh oo waa yaraadeen. laakiinse marka loo fiirsho warbaahinta soomaaliya iyo sidai isku xoreed iyo qalabkii isticmaali jirtay waxay ahayn qalab aad iyo aad waqtigooda quality fiican u leh una tayo badan. marka wixii markii laga soo gudbay oo ilaa kow markii u horreysay aan ka bilaabay wargeyshada marka laga bilaabay waxaa jiri jirtay xilli waxaa warfaafinta soomaaliya soo martay wax kastoo qoran aysan af soomaali ahayn, haddana raadiyaha laga rabo inuu af soomaaliya ku sheego, oo wariyaashu warqadaha ay warar ka akrinayaan iyo magacyada waxa ku qoran ay ku leeyihiin talyaani, balse marka qofka wariyaha soomaaliga arko oo isla markiiba ku turjumayo afkiisa hooyo. wargeys waxaa soo bixi jiray Corriere della Sera sida hore taariikhda ugu maqalnay. kadib waa kii wargeyska xididka October sameeyey, kadib wargeysyo badan lasoo subiyey ilaa markii dambe wargeyskii Ogaal, Dalka, Heegan, wargeysyo kala duwan soo baxay. kadib markii burburku dhacana intaasoo kun oo wargeys oo Soomaaliya dad Soomaaliya ay qoranaha soo baxday oo kulli cabiraada fikirka iyo afkaaraha warbaahineed ee dalka ka jiray haddana noqotay. dhinaca kale usoo qaad meeshii ay ahayd hal idaacad oo dalku lahaan jiray, maanta hal idaacad male, dhowr iyo 10 idaacadood hal magaalo guhooda yaalla. marka la isu geeyo dhowr iyo 10 telefishin oo Soomaaliya jira. marka la isu wada geeyo ugu yaraan 500-600 oo website oo Soomaaliya jira. marka la isu geeyo oo geesaha loo fiiro bara bulshada soo baxay. waxaa soo baxay aalado yaryar oo warka meeshii raadiya laga sugi jiray ama idaacadda goorma warka soo gala la dhihi jiray. hadda waxaasna adduunka ma jirto, wax kastoo dhaca in a minute
wax kastoo america ka socda waa arkay, wax kastoo ka socda dalkaagana waa arkaysa. marka sidii la isugu xiri lahaa oo warfaafintii hore waqtigeedii soo qaadatay waa lagu soo gudbay, inta lasoo raro loogu xiri lahaa warfaafinta cusub waxay tahay wax aada u baahan farsamo iyo ka taxadir. oo haddaan tusaale soo qaadano ewel nin weri inta qof iska soo fadhiisto wax rabo ma dhihi karin, mana sheegi karin. war aan soo marin hubin, war aan soo marin tafaftir, war aan soo marin wakaalad lama sheegi karin. hees la iskama qaadin karin, riwaayadda iskama dhigi karin. wixii marka hadda lama hubinayo si marka loo adduunyadii loola qabsado, ilaa hadda hubinta adduunka waa ka jirtaa. hees kastoo aqaado waa lagugu qabsan karaa, barnaamij kastoo sheegto waa lagugu qabsan karaa, cashar kastoo aad jeediso waa lagugu qabsan karaa. adduunyaduna dadku isku fikrad ma aha. adiga waxaad erayaa tiri ayaa wuxuu noqon karaa erey colaad keena oo dhibaato keena oo dad ku dhintaan ama ay burbur ku yimaado. waan run, fikrad kasta oo lagu hoogo qof binaadan ay ka timaadaa. fikrad kasta oo la mahadiyo oo ay bulsha mahadiso oo taariikhda gashana qof ay ka timaadaa. si marka wixii laysu waafajiyo, fikradaada adigaa iska leh. haddaad saxaafad ku gudbiso adaa iska leh, haddaad gabay ku gudbiso adaa iska leh, haddaad sheeko ku gudbiso adaa iska leh, haddaad filim ku gudbiso adaa iska leh. laakiinse waxaa la rabaa fikradaadu inaysan noqon fikrad wax disha ama dhibaato keenta. ha noqoto fikradaadu fikrad wax dhisi karta, hana noqoto fikradaadu fikrad la sixi karo. dad waxaa jira aan la sixi karin oo inta iska soo dhaqaaqa. haddii aad tiraaniyo barnaamijkaas adiga meesha ka fiirisay iyo meesha u ujeedo waa kala duwan tahay, armow saas isu bedelaa barnaamijkaas. soomaalida sida badan ma ogola. marka wax kasta oo dhacana niyo shar iyo khayr ayba leeyihiinba. waa toos, waa la yaqaan. saxaafaddu waa midi laba af la waaye. haddii wax lagu dhisana waxay dhistaa, haddii wax lagu dushana waxay dumisaa. hadda marka soomaalida waxaan arkay qeybta dumista, qeybta wax lagu dumiyo iyo qeybta wax lagu baaba-asho ama wax lagu weeraro bisaan ka isticmaalaba. waxaan marka raadiyaa keligay anoo ah, waxaan raadshaa warniyo qeybtii dhismaha iyo isusoo dumidda iyo dib u heshiisiinta iyo wadajirka maxaa loo adeegsan waaye? hal maalin ka dhig ama 2 maalin ka dhig loo waayey dadka soomaaliyeed ee saxaafadda ka shaqeeya isku meel u jeeda kulligood. waa shida adduunka jirta. waxaa loo waayey ilaahan ba ugu talagelin adduunkan in wax loo midoobaba. kuwa dariiqa naartay hayaan, kuwana dariiqa jannaday hayaan, kuwa meel dhexay taagan yihiin. waa dad marka waa shida adduunyadao kale ay saxaafaddu lamid tahay. waxaad arkaysaa dad badan oo saxaafiyiinta kamid a oon ayagu issalaamin. kan waa suxuuf waa yaqaana, kanna waa suxuuf waa yaqaana. laba fikrad oo iska soo horjeeda iyo laba mabdo oo iska soo horjeeda oo labaduba dadka ay dalka liddi ku yihiin ay wadaan. war fikrad kasta oo diintaada iyo dalkaaga iyo dadkaaga liddi ku ah aday liddi kugu tahay. adduunyada wax lagama yaqaano. fikrad kasta oo adig kugu jirta iyo koox kastoo aad nacabtahay iyo koox kastoo aad ka tirsan tahay, haddaad tahay suxufi waxaa ku saaran difaaca ku saaran. ilaahana idinku dhaarshay difaaca dadkiina, difaaca dalkiina, difaaca shuruucdiina, difaaca sharafkiina iyo cirdigiina, difaaca taariikhdiina. meel kastoo aad joogtaan waxaan ugu baaqayaa warfideenka soomaaliyeed iska jir oo iska jir. anigoo fursaddan ka faa'iidaysanaya, iska jir inaad noqoto burus lagu burburiyo dadkiisa, burus lagu burburiyo sharaftiisa, burus lagu burburiyo taariikhdiisa. afkaagu yoosan noqonin afka wax lagu dilo, fikirkaagu yoosan noqonin fikirka wax lagu dilo, ee ha noqdo fikir wax lagu dhiso. haddaad wax maqasho ha la boodin, haddaad wax maqasho afka ha furanin, haddaad wax maqasho horay jawaab ha ka jawaabin. mar kasta oo wax kuu soo dhacaan waxaa la rabaa space u dhexaysi, xataa ugu yaraan 2 salaadood. haddii war oo duhurka kusoo gaaray ilaa salaada casirka sug, hadduu maqrib kusoo gaaray ilaa cishaha sug. warka dhinaca lagaaga sheegay oo lagaa tusay maaha, dhinaca kale ka fiiri. sheekada dhinaca lagugu sheegay maaha, dhinaca kale ka fiiri. garabka kale raadi, taariikhda dib u baar, qoraaladii hore laga qora keliga adoo ah raadi. inta aadan barnaamij sii daynin ama aadan miidiyaha ka shaqaynin, oo kolley miidiyaha waa u aragteen halistiisa. dad badan waa ku fashilmaan, dad badanna macnaha way ka miro dhaliyeen. waan run, hawl kastoo la qabto nina beertu u baxdaa, nina beertu waa ka badaa. waa iska nolosha caadiga kamid tahay. laakiin waxaa shardi ah inuu qofku yahay qof asagoo aan dhib geysan. waxaa kuugu daran adiga inaad miidiyaha soo gashid ama miidiyaha ka shaqaysid soomaaliya, aad dembi ku mudatid ood xabs ku gashid ood ku sharaf beeshid oo 10 sano 20 sano kadib adiga dib lagu raacdaysto oo lagu yiraa ninkan hadda ka hor soomaha ninkii saas yiri
ninkan hadda ka hor soo maaha ninkii qoraalka noocaasa qoray, hadda ka hor soo ninkaan maaha ninkii labada qabiil isku diray, hadda ka hor soo maaha ninkaan wixii waxaa suubiyey in lagu dhaho adiga dhibaatay kugu tahay. naxdinaa weligaa ku noolaane. saxaafaddaas marka waxba kuma tarin. marka saxaafadda waxaa laga rabaa waxa aad sheegayso wax taariikh leh, tixraac leh, waqti leh, meelna leh inay noqon. oo haddii hataa la isku qabsado aad dhihi karto aniga warkaas saas iyo saas u ahay, waxaasaa dhacay, saasuu ku dhacay, halkaasuu ka dhacay, wixii aad sheegi karto. laakiin intad adiga keligaa inta qof asxaabtaada kamid oo kusoo waco oo fikrada kuu sheego saas iyo saasay ahayd, saas iyo saasay ahayd, saas iyo saas dheh, aad adigu ista soo fadhiisato adigu aad toos u gasho, qofkaasi dembiga ma kula qaadanayo. ilaahay marka waxaan ka baryayaa inuu saxaafadda soomaaliyeed mid ka dhigo. kolley mid ma noqonayso, ilaahay isku soo dhaweeyey mina meelaha qaarkood inay mid ka noqdaan. waxaan ka codsanaya dhammaan soomaalida dibadda ku nool ee warbaahinta ka shaqeysa inay si wada jira fikrado oo dalka iyo dadka dhisi karan ay isu keensadaan. waxaan ugu baaqayaa saxaafadda gudaha joogta inay aqoontooda iyo sharafkooda kordhiyaan, oo raadiyaashu waxay ka qeyb qaataan nolosha dadkay ka qeyb qaataan, ay nolosha dadka ka qeyb qaataan. urur kasta iyo koox kastay kamid yihiin. hataa waxaan ogolahay aniga wax dhib u ah dadkayga aniga qof imarsii kara male. waxaana ilaahay uga baryayaa intii dhimatay allah naxariisto, inta bogta allah caafiyo. ilaahay waxaan ka baryayaa sanadkan inuu na noqdo sanad ay saxaafadda soomaaliyed wax badan iska bedelaan. dhammaantiin waa mahadsantiin.